Abaalmarinta Ballon d'Or ayaa soo laabanaysa sanadkan oo loo bixi doono kadib markii la kansana sanadkii hore sabab la xiriira xanuunka coronavirus kaasoo dhaliyay muran badan. 14 xidig oo Premier League ayaa ka mid ah 30 xidig u tartami doono abaalmarinta xidiga ugu fiican sanadka kadib markii la shaaciyay liiska Jimcihii hore. Kooxda ku guuleysatay UEFA Champions League ee Chelsea ayaa ku leh xidigaha Cesc Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kante, Lukaku, Monti, halka City ay ku leedahay Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Foden, Riyad Mahrez iyo Raheem Sterling. Xidigaha Manchester United ee Cristiano Ronaldo iyo Bruno Fernandes ayaa ku jiro, halka xidigaha Harry Kane iyo Mohamed Salah ay ku jiraan xidigaha u tartami doono abaalmarinta Ballon d'Or. Horyaalka Serie A ayaa ku leh xidigaha Nicolas Pereira, Bonucci, Giorginini, Simon Kanjar, Lautaro Martinez, halka La Liga uu ku leeyahay xidigaha Benzema, Luka Modric, Gerard Moreno iyo Luis Suarez. Kooxda PSG ayaa ku leh xidigaha Donnarumma, Kylian Mbappe, Leo Messi, Neymar, halka xidigaha Bundesliga ay ku leeyihiin Haaland iyo Roberto Lewandowski. Wargeyska Mirror ayaa shaaciyay 10 xidig ugu cadcad ku guuleysiga Ballon d'Or sanadkan. Haddaba liiska 10 xidig ugu cadcad ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d'Or ee sanadka 2021. Roberto Lewandowski Bayern Munich ayuu ka socdaa. Karim Benzema Real Madrid, Jorginho Chelsea, Leo Messi kooxaha Barcelona iyo PSG ayuu ka socdaa. Cristiano Ronaldo wuxuu ka socdaa kooxaha Juventus iyo Manchester United. N'Golo Kante Chelsea, Kevin De Bruyne Man City, Haaland Borussia Dortmund, Kylian Mbappe PSG, Mohamed Salah Liverpool. waana 10 xidig ugu cadcad la isleeyahay sanadkan way ku guuleysan karaan abaalmarinta Ballon d'Or. Adehan yaa isleedahay xidigay ayaa sanadkan ku guuleysan kara abaalmarinta Ballon d'Or 2021. Fikirkaada waad ka soo dhiibi kartaa.